السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waa janaalka canshuur bixiyaha dulman oo mar walba idinkala socodsiiya xaaladaha ugu dambeeya dalka. Waxaan halkan idinku soo gudbinaynaa Ikraan Faarax oo ahayd gabar ka tirsan ciidanka nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliya. Ikraan waxaa la leeyahay 19 habeen oo caawa 20 ay ku tahay oo qoyskeeda leeyahay. Waa tahay haddaba waxaan rabaa inaan idinla wadaago xogtan iyo cidda aan ka helno. Jenaraal Cabdalla oo ahaa agaasime ku-xigeenka ciidanka NASA ayaa wuxuu caddeeyey in Ikraan lagu dilay xafiiska Fahad Yaasin. Maxaa loo dilay gabadhan yarta ah mustaqbal kale oo jaamacadda ka soo baxay? Waxaa loo dilay waxay ogeyd sirarka badan oo Fahad Yaasin iyo kulanajiis sir badan ayay ka ogeyd. Khaasatan waxaa loo dilay wiilashii dhalinyarada ahaa ee eletri la geeyey oo ilaa hadda aan laga hayn wax caddayn. waxay haysay liiskii warar ayaa sheegaya in kulanajiis uu soo bandhigay guurkiina ay ka diiday, laakiin taas ma xaqiijin karno. waxaa huban in ay shaqadii lagu cadaadiyo markii la dilayana gurigeeda ehelkeed markii ugu dambeysay iyo tiri albaabka la ilaabo sida hooyadeeda inoo xaqiijisay. laabtoobka soo qaaday la yiri sir badanaa laabtoobkaas ku jira. waxaa lagu dhex dilay xafiiska NISA waxaana lagu soo duugay waqooyi Muqdisho keesanay agagaarkeeda si qarsoodiya. warkaas waxaa laga helay Jenaraal Cabdalla oo ahaa taliye ku-xigeenka ciidanka NISA oo wax badan kala socda. wuxuu soo bandhigay oo beejkiisa ku soo bandhigay gaariga Hiluxka ah ee lagu qaaday ee NISA. waa tahay gabadhan intaas sir haysay haddii la dilay maxay kaloo haysay? waxay haysay Allah u naxariistay gudoomiye Yariisow iyo dilkiisii wax badanay ka ogeed, inkasta oo arrintaas ay aad laciif u tahay in loo aaneeyo. laakiin waxaa huban in dhalinyaradii loo qaaday eletriya sida sharci darrada loo qaaday oo ahayd NISA ayaa qortay waxayna ku tiri qadar ayaad mushaar fiican ka qaadaysiin cayaaraha adduunka waardiyeysiin lagu wada dhalinyaradaas damaanad badanaa loo diray oo nabadoonada iyo waxayna taas oo si sharci darra ah oo mooryaanimo ah eletriya tababar loogu qaaday. okay gabadha Ikraan hooyadeed oo Istanbul joogto ayaa wareysi siisay telefishinka Universal. waxay sheegtay in khilaaf ayaantay uusan shaqeyno khilaaf badan oo dhexyey. okay gabadhan yarta ah haddii ay dhacdo in la dilay sida hadda wararka soo taray sheegayeen in lagu dilo hay-adda NISA dhexdeeda, waa fashil, waa dowladnimo xumadii ay lagu yaqiin kooxda khiyaano qaran ee farmaajo ayay kow ka tahay. okay maxaa nala gudboon? inaana ka harin, daba kacno, la ogaado muuqaalkana si lasii faafiyo si ay dadka ka qarsoon tahay arrintan ay u gaarto. waxaa la yaab leh wiilal kale oo dhalinyaro 3 ayaa maqan, 6 ayay ahaayeen Mareykan lagu soo tababaray nabad sugidda ahaayeen. kiiska injineer Yariisow ayay gacanta kula jireen, ayagana 3 ka mid waa la deeyay, 3 kalena warkooda ayaan idin soo gudbi doonaa wixii ka dambeeya. waxaan leenahay qof walba sheer garee muuqaalkan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan ka rabaa inaad janalka subscribe saartaan sina share gareysaan. janalka canshuur bixiyaha dulmo waa mahadsantiin. wada shaqeyn waxaan gaarsiiyo ummadda oo dhan.